السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran kanaalkan YouTube ee Gratio isku soo noqod wanaagsan casharkan waa casharkii 14aad ee barashada Adobe Illustrator insha Allah waxaan ku baran doonaa sidaan u sameyn lahayn waxa lagu magacaabo billboard fadlan hadii aad soo daawan 13kii cashar ee midkan ka horeeyay isku day inaad daawato waxaad fahmi doontaa wax walba oo aan maanta sameyn doono insha Allah aan u guda galno casharkeeni maanta waxa muhiim ah sidaan u sameyn lahayn boardkan sidoo kale waxaan faahfaahin guud ka bixin doonaa sida loo sameeyo qofka sameynaya boorka waxyaabaha looga baahan yahay boorka sida u jeedo dabcan waa supermarket sidoo kalena waxaan arkaynaa boorar kale oo dabcan loo design gareeyay noocyo kala duwan mar walbana nashqadeynta billboardku wuxuu ku xiran yahay qofka loo sameynayo marka waxaan arki doonaa boorar la nashqadeeyay iyo sida ay u egyihiin hadii aan ku hormarno boorkan halkan ugu diyaarsan sida u jeedo boor meeshan waxa kaga muuqda loo sameeyay dukaan lagu magacaabo Caalami Shop halkan sida u jeedo waxa la isku keenay waxay tahay wax allaale iyo wixii dukaankan lagu gadaayay waana dabcan dooqa qofka loo sameynayo sababtoo ah qofka duusan ku qanacsanayn dukaankiisa hortiisa laguma dhajiyeen marka halkan sida u jeedo raashinkii saliidii oomadii wixii oo dhan macalla wax weeyaan shumacyadii jodariyadii lagama soo tagin qaabka loogu sameeyana waxay tahay qaab ah in magaca halkan lagu qoro halkan hoosena wax weeyaan lagu qoro numberka qofkii inta kale laga dhigo wax weeyaan dabcan alaabtii iyo wixii uu qofkan gadi lahaa marka hadii aan ka gudubno design-kan midkan kalena aan fiirino sida u jeedo halkan waxa kaga muuqda maqaaxi lagu magacaabo Weheliye restaurant iyo cafeteria isku ah qaybtan wax walba oo cafeteria-da la xiriiray meesha sida u jeedo dabcan cabitaanadii cunadii fududeed shaahi halkan la isku geeyay qaybtana waxa la isku geeyay u jeedo wax walba oo restaurant-ga weyn ama maqaaxiyaha weyn oo kale laga isticmaalo sida dabcan hilibka noocyadiisa kala duwan iyo caano geel waxyaabas baa la isku geeyay marka sida u jeedo kulay mar walba waxay ka imaanaysaa qanacsanaan dhanka qofka loo sameynayo marka magaalada adigoo maray aad aragto boorar noocyo kala duwan leh inaad tiraahdo dadka designing-kan sameeyay professional ma ay wax la mid ah waxay ku xirantaa mar walba qofka wax loo sameynayo qanacsanaantiisa laakiin inta badan dadku lama tashadaan dadka dabcan graphic design qaabilsan ama nashqadeynta designada sababta waxay leeyihiin qof hebel wuxuu uu haysto kala ii sameey ama wax la mid ah marka waxa imaanaysa qofkii in uusan waxyaabahan oo kala loo sameeyo marka hadii aad sameysanayso boor waxaan kaaga talin inaadan boorkaaga aad ku dhajin waxyaabo aad u tiro badan kaliya aad soo koobto boorkaaga uu ahaado mid macna guud ah sidoo kale waxa wanaagsan inaan isla fahanno horta yaa lagu talagalay dabcan waxyaabaha cunada halka lagu dhajiyay qoraalka halka ku qoran yaa lagu talagalay dabcan hadii aad tahay qof wax qoraha waxna akhriya dabcan waxyaabahan adiga ayaa lagu talagalay in meeshan tahay restaurant iyo cafeteria isku tahay laakiin hadii aad tahay dadka aad waxna qorin waxna akhrin sidaan filaayo inkastoo channelkan ay daawanayeenba waxyaabahan dadkaas ayaa lagu talagalay marka mar walba waxa isku dayda dadka wax akhriya waxna qorin iyo dadka wax qore wax akhriya in boorkaaga uu yahay mid labada qofba fahmi karaan wax uu ku saabsan yahay marka halka hadii lagu qoro Weheliye restaurant and cafeteria bis hadii lagu qoro wax macquul qof u baahnaa maqaaxi inuu magacaan akhrin waayo ama cunno iyo wax intuu ku arki waayo yiraahdo meesha maqaaxi ma ama markuu soo galo inuu weydiiyo dadka meesha joogay meesha maqaaxiba marka waxaad u baahan tahay inaad waxyaabahaas oo kale boorkaaga aad ku soo darto si dadku ay dhex aqoonsadaan marka hadii aan ka gudubno marka sharaxaada noocaana waa qaab old version lagu magacaabi karo in cunno tira badan lagu qoro boorka iyo wax way alaab tira badan dabcan sida si noocaan oo kale lagu sameeyo marka waxaan u gudbaynaa marka qaybtan sida u jeeda boor ba halkan inooga muuqda waana sida aniga fikirkeyga meeshan waxa ka maqan magacii isbitaalka sidoo kale loogadii halka ka maqan intaas ka gudubno meesha waxa ku qoran marka qaybaha isbitaalka ku qoran qaybaha ilkaha kale waxa laga dhigay iyadama icons afar xaba ay gargaarka degdega shaybaarka daawada inuu sidoo kale 24 saac shaqeeyo waxyaabaas ayaa lagu soo koobay halkan isbitaalka calaamadiisii iyo baa laga dhigay meeshaasna waa magaci waa very simple wax yar oo iska yar oo tilmaamaya isbitaalkan waxa uu ku saabsan yahay marka qaabkaas ayaan anaguna maanta raaci doonaa insha Allah in boorka aan sameynayno aan ku soo koobno dhowrkan xabo vegetables-ka qudaarta cosmetics-kan kala duwan marka halkan looga waxba inoo yaal sidoo kale halkan waxa noo yaala magacii supermarket-ka marka sidaan filaayo hadii aad dadkii koorsadaan la soo bilowdo halkan la soo gaaray waxani hadii aad korka aragtaba inaad sameyn karayso
marka wax sida u dhabada ma aha kaliya waxa ka maqan sida rajeenayo sawirada halkan ay isticmaalay ayagana waan ku soo diri doonaa insha Allah hadii aad soo weydiiso halkan waxa inoo yaala marka loogada dabcan supermarketka loogadiisii iyo colorska aan isticmaali doona ayagana halkan ayuu inoo yaala marka mar walbana waxaan u baahanahay inaan sameysano marka documentiga aan ku abuuran lahayn projectiga aan ku abuuran lahayn supermarketkan marka waxaan ku dhufanaysaa file kadib waxaad dooranaysaa marka new halkaana marka sharaxaad guud ay u baahan tahay iyo fahan meeshan waxa ku qoranaynaa magac aan rabno tusaale waxaan leenahay maadaama aan sameynayno waxaan leenahay Zahra bes waa intaas ayaan ka dhiganaynaa Zahra supermarket ayaan u sameynayna marka magacaan ayaan ku qoranaynaa mar walbana boor marka aad sameynayso artboard-ka aad qaadanaysaa waa inuu hal xabo ahaado hal xabo ka badan ID card iyo business card ma sameynaysid oo dhowr oo dabcan baga hore baga dambe maaha halkaas artboard-ka hal xabo oo kaliya aad ka dhiganaysaa marka halkan sidaan u imaanayno meeshan pixel waad bedelaysaa sababta ku bedelaysaa waxay tahay anaga Soomaali ahaantii dabcan waxaan isticmaalnaa mitir wax lagu magacaabo qofku uu tagaya dukaanka ayuu tagi kadibna wuu mitirinayaa marka inta albaabka iyo formulairka u dhaxaysa ayaa badanaa boorka lagu dhijiyaa marka intaas waxay u dhaxayn karaysaa mitir hal mitir ama wax weeyaan 2 mitir ayay u dhaxayn karaysaa marka halkan cabirka waxaad ka dhigataa marka centimeters meeshana marka anagu waxay hadba la soo qaadayo ku xiran tahay cabirka su'aale qofka dabcan cabirka wasaa markuu meesha tago widthka wuxuu ka dhigan karaa dabcan inta uu cabirka uu keeno 2 mitir oo kale haduu ku yiraahdo meeshan waxaad gelinaysaa 200 ayaad gelinaysaa kulli cabir yar oo laga jaray ayaa jira oo 20 centimeter taasna wax weeyaan qofka daabacaya badana ka reeba marka anagu hadda ka reemayno isagoo dhameystiran geesiisa qaabkaas oo kala oo full ayaa sameynayna laakiin marka la daabacay in yar oo dabcan masaabiirta lagu dhajiyo ama alwaaxda lagu laabo ayaa laga jaraa oo boorka halkaas kala imaanaya marka qaybta ay sameeyaan meesha marka height-ka kale ayaa isna waxaan ka gelinaynaa anagu boorka aan sameynaynahay height-kiisu waa 1 mitir wax weeyaan balaciisana waa 2 mitir marka meeshan kore waxaan gelinaynaa 200 ayaan ku qoraynaa 200 oo dhiganta 2 mitir 200 waxay u dhigantaa 2 mitir oo wax weeyaan oo 2 mitir oo boorkan ay u dhigantaa oo balaca height-kana waxay u dhigantaa marka in ku qorayna ayada 100 oo ah 1 mitir marka boorkan dhererkiisu waa 1 mitir laakiin balaciisana waa 2 mitir meeshan waxaan ka dhiganaynaa marka CMYK waxay u dhigantaa dabcan in boorkan la daabacayo RGB na hore ayaan kugu soo sheegay ayadana waxyaabo aan la daabacayn ayaa laga dhigaa meesha marka halkan ka dhiganin dabcan 300 haday ku ahayd hoos u dhig 72G hadii kale wuxuu noqonayaa in boorka xajmigiisa uu weynaado oo dhowr GB uu gaaro marka halkan 72 ka dhiga halkaas ayada ah kadib waxa leedahay marka grade document waxana shaashadii cadeeyda artboard-ki ayaa qaabkan kugu soo bixi doona marka boorarkan dabcan inaad fahanteen waa rajeynaa waa iska kansalayna uma baahnin sidoo kale midkaana uma baahnin asagana waa dabcan maqaayad aan ku soo sharaxay asagana waan iska bixin kanoo kale asna uma baahni qaabkaas weeyaan marka halkan waxa ii yaala loogada dhankan ayaan soo marin doonaa labadan ayaa isku xijin doona marka sidoo kale kan waxa ii yaala dabcan sawiradan isticmaalayo iyo documenti noocana meeshan waxa u baahanahay kan waa background-ki dambe dharkii iyo cosmetics-ki waxyaabihii wax weeyaan sidoo kale halkan waxa ii yaala vegetables-ki halkan waa loogadii marka meeshan billboard documenti waxaan sida u weyn kuma qorna waa magaca supermarket-ka isticmaalnay cabirka oo dabcan 200 iyo 100 wax weeyaan dhererkiya marka categories-ka vegetable ina isticmaalay cosmetics-ka iyo lambaradii halkan lagu qoro marka halka isaga dhan buu warbixintiisa halkan ku soo koobay waxa aad sameynayso marka hore document ayaa laga diyaariyaa magaca supermarket-ka cabirka waxyaabaha uu ku saabsan yahay kadib way ku fududaanaysaa marka sameyntiisa kana aan iska kansalo waxa ugu horeeya aan soo qaadanay halkan ka soo qaadanaya waa background hadii aan halkan iska yareeyo waxaan soo qaadanaya marka background ayaa halkan keeni doona marka koowaad background halkan markii aan keeno halkan hadii uu soo jeedo background inta ayaan uga baahanahay inaan ka isticmaalo halkaas oo kale waxa moodaa background-ka in xoogaa aan la arki kareynin waxyaabaha meesha saaran blur uu ku jiro marka opacity-giisa anagana waa ku sii daraynaa ilaa hoos aan u sii dhigno waan dooranaynaa halka opacity ay ku qoran tahay hoos u sii dhig ilaa waxaad geynaysaa dabcan 63 oo kale hadaad geyso waa okay meeshan sida u jeedo billboard-ka aan tagno meeshan hoose wax weeyaan rectangle baa noo yaal halka korana hal rectangle isagana waa sameynaynaa marka background waxaan u baahanahay inaan wax sameyno laakiin ku dhaqaaqaysa u jeedo calaamadan aad fuulaysa waxaad sameynaysaa marka control iyo 2 ayaa isla qabanaysaa log ayaa ku xirmaya isagoo dhan waka
sidoo kale halkan layers ay ku qoran tahay aad ku dhufato meeshaas aad furto si ujeedo waxa ku jira quful ayaa soo fuulaya marka hadii control 2 ay ku shaqayn weydo halkan imow qufulka saar ama sida oo qaad meeshana oo qaadi kartaa waana ka saari kartaa sidoo kale waxaad isticmaali kartaa inaad markii aad ka qaadayso aad qabato control alt iyo 2 ayaad isla qabanaysaa saas iyo log oo kacaya hadda marka logis ayaan ku celinaa xalena control iyo 2 ayaan isla qabanaynaa waxaan u baahanahay marka inaan marka ugu horeysa sameysano wax lagu magacaabo colors inaan sameysano halkan waxa noo yaala laba color ayaa noo yaal labadooda color baan soo qaadan halkan oo kale ayaan keensanaya si ay ugu fududaato labada color aan weyneeyo ayaga halkaas oo kale aan dhigo sidoo kale waxaan u baahanahay labadan color inaan ku darsado wax lagu magacaabo swatches inaan ku darsado halkan waxa ii yaal aniga swatches 10 ayaan ku soo baranay fadlan 10 ka daawo labadan color ayaan swatches ku darsan doonaa waa aragtay angallo aan dabcan sameeynay sida loo sameeyo sida loogu darana 10 ka soo daawo insha Allah waa soo qaadaysa halkaas drag and drop ayaan ku sameeynaa sidoo kale kana waan soo qaadaya waan ku darsanaya labadoodaba waka labadan ayaa igu jira oo aan isticmaali doono sidoo kale kuwana meeshooda ha yaalaan ayaguna waxaan ku hormareynaa marka isaan u isticmaali lahayn rectangle-ka kore ayaan sameeynaya hadeer rectangle-kaas markii aan soo qaado halkaan oo kale aan keeno intaas oo kale aan leekeysiyo sida ujeedo marka hadda ma laha calaamadan ma laha geesas laga soo xiray waana garanaysaa hadii casharadii hore aad soo daawatay meeshaan waxaan dooranaynaa ay ku qoran tahay direct selection toolka dooranayna kadib iligas click ayaad ku siinaysaa waxa ku soo baxaya marka pointiga ayaa ku soo baxaya kadibna qaabkaas ayaad dooranaysaa sidaas ayaad leedahay okay sidaas marka aad sameyso kan imow hadana kan click ku sii midkan ayaa ku soo bixi doona kadibna sidaa u samee labadooda marka sidaa ku sameyso waa okay waxaan sameyn doonaa marka kii hoose ayaan asna sameynayaa reeshan ayaan dooran halkaan ayaan imaanayaa kadibna waka asagana halkaas ayaan leekeysin doonaa colorkiisa guduud ayaan u baahanahay inaan airdrop kan qaado kaliya ku siiyana waa sameyn karaa sidoo kale halkaan intaan furona guduud waan ka dhigi karaa qaabka isku bedelaya ama coloradooda halkaan ay ugu jiraan labadii color baa kuwan halkaas ayaan ka dooranaya hadhow qaabkaas ayaan ku sameeyay marka labadoodiiba meeshaan waxa ii yaala marka sida ujeedo logo oo ku jirta dabcan qaabkan ayay ku jirtaa qaybta xariiqa asagana waa around midkan hoose rounded kan ayay ku jirtaa waan soo qaadi halkaan oo kale ayaan keenaya halkaas kale markaan keeno waa okay fiilkiisa waxaan ka dhigayaa dabcan cadaan ayaan ka dhigi colorkiisa cadaan strokes aad buu u hooseeya waan kordhin ilaa 30 ayaan geenayaa xogaa waxaan u baahanahay inuu soo muuqdo saas oo kale markuu soo muuqdo waa okay hoos ayaan isoo yara dejin halkaas oo kale qaba dooro falaaraha hoose waad ka qaban kartaa hoos soo yara deji inta markii aad soo sameyso waxaan ku sameynaysaa marka labadaas geesood ayaad ku sameynaysaa inaad ka soo xirto direct selection toolka dooro kadibna sidaan ugu soo wareeji sidaas kale markaad ugu soo wareejiso adigoo click taaya kadibna mid kamid ah qabo ama kaas qabo waa isla mid sidaas dheh okay sidaas markaad ku sameyso waxaad sameynaysaa kan dooro rectangle-kaas kore ayaad dooranaysaa right click ayaad leedahay arrange ayaad tegaysaa front ayaad soo marinaysaa qaabkaas oo kale samee marka sidaa markii aad sameyso sida ujeedo waa meeshaan waxa aan diyaarinayo xogaa dabcan sidaas oo kale ku ahayn marka la dooro labadan xabo direct selection ku laawo sidaan u jiid labadii xabo ka ku soo baxay sii wad ilaa ay sidaa ku noqotana waa okay hoos soo yara deji sidaas kale marka soo dejisana waxaad soo qaadanaysaa logadii logado dhan select garee waan ku soo diri doonaa iyadoo dhameystiran insha Allah kadib selection toolka ayaan dooran doonaa halkaan oo kale dhamaantood intaad highlight gareyso hal group ayaan ka dhigan doonaa right click ayaa leeyahay group ayaan ku dhufan kadib marka waan soo qaadan ayagoo dhan markii aan soo qaato logadii halkaan oo kale ayaan keeni doonaa aad ay u yartahay markii halkaas oo kale aan keeno meesha kale marka aan keeno geesaha qabo kadibna shiftiga ayaad la qabanaysaa xogaa ayaad soo weyneynaysaa halkaas oo kale weeyaan meelahaas oo kale okay what really waka intaas kale marka dhigato waa okay waxa dhan oo aan sameeynay marka waa qaybtan kore ama wajigan kore intana waa in yar oo iska naanaasha kulay muhiimadu ma inaad boorka oo dhan aad dabcan wada aragto waxa muhiim ah inaan waxyaabaha ku jirtirahay trickska la isticmaalay inaad wax ka fahanto marka hadda kan waad sameysay sidaan rajeynay kana waad fahantay sidoo kale kana waa aragtay marka waxa inoo dhimo marka geesahaas wax yar oo iska yar weeye geesahaas waxaad ku sameynaysaa marka pen tool ayaad isticmaali kartaa pen toolka hadii aan soo qaado waa kan asaga waxa lagu magacaabaa pen tool halkaas meeshaas kale geeb click marka aad ku siiso halkaan hadana click ku sii intoo kale marka aad click ku siiso labada aad isku geey mar kale colorkooda waxaad ka dhiganaysaa dabcan airdrop ka qaado halkaan ay ku yeelaan click ku sii
kadibna qaabkaas samee waxaad dooranaysaa mar kale pen tool iligan hadaad samaysan kan ayaa kuu dhiman halkaas kale muuska kale ku sii geeskan oo kale calaamada markay haysaa u xariiqmato kale ku sii kana imow kana kale ku sii sidaas marka geesaha ugu xirto selection tool ku laabo kale colorka midkan uu qaato iyo isna qaadan doona sidaas oo adiga ku sameeyay labadan dhinac marka waxaan inoo dhiman marka qaybahan sida u jeed marka waa rectangle kale hal xab ayaan sameyn doona labada kale inaad sameyso ayaan rajeynayaa marka halkan hadii aan soo qaado around rectangle ayaan ahaa midkan isticmaalnay waxaan dooranaynaa marka maanta aan baranayno oo ugu cusub waxay tahay qaabka loo isticmaalo mastarada waxay ku taalaa view ku dhufo kadibna rule list watan show ku dhufo kadibna watan labadaas geeso ay ka soo baxaysa sida u jeedo waxay ku taalaa hadii aan marka ku celiyo view waa taas weeyaan fur waxa weeyaan hadii aad u baahan tahay iska qariso hay dheedaad doonaysaa soo saartana show dhe marka hadda waxaan u baahanahay inaan hal xab ayaa soo jiidanaysa halkaas oo kale keen hal xab ka soo qaado halkaas oo kale gee colorkeedu waa ka ku soo baxay hadhowtiin waa iska dileedi kartaa waa caadi rounderka ayaa soo qaadanaynaa halkaas oo kale ayaan geenayaa anigu halkaas oo kale markaan dhigo waa okay color si u jeedo wax color ma laha airdropka ayaan qaadan kadibna click ayaan ku siinayaa colorkiis ayaan siinayaa asla asaga ayaan koobiyeenayaa control z control f ayaan leeyahay hal xab ayaan ku koobiyeen cabirka ayaan la raadin kadibna ka kale waxaan leeyahay control z control f laba xab markuu noqdo ka dhex qaado ama alt waa la qaban karaysaa waa okay sidaas ka markaan iraado kadib waxaan soo qaadanayaa marka waxa lagu magacaabo midkan ayaan soo qaadan kii magaca lagu qori lahaa meeshan waka asagi midabkiisu dabcan waa ka yara bedelaya asaga kadibna waka kan ayaa asna sidoo kale waad koobiyeysan kartaa control z control f hal xabba ka qaado halkaas kale gee mastarada marka la soo qaado si cabir ku hagaago halkaas kale dhigo kana kor yar u qaad asagana waka mid kale ayaa iga dhiman control c control f waka asagana soo jiido halkaas kalena asagana gana dhigo marka waa qaabkaas qaabku u sameeynay waxaan u baahanahay kuwa inaan sawiradii aan dhex galino mid kale ayaan u baahanahay inaan ku soo darno marka hadda hal sawir ayaan halkan ka soo qaadan doonaa waxaan ku hormari doonaa dhinacan waxa u xigay waxa lagu magacaabo vegetables-ka qudaartan ayaa u xigtay asagana waka qudaarta marka sida aan ku keeno aan xoogaa yareeyo shiftiga aan doorto geeso kale aan iska yareeyo halkaas ka markii aan keeno waxaan dooran doonaa marka rectangle-ka hoose dooro markii aad doorato kadib waxa leedahay right click arrange ku dhufo kadibna front dheh qudaarta markay gadaal marto qudaartaada ku habe waxaagii meeshaadii ku aadi hoos u deji kale qudaarta ka yara gaabto shiftiga la qabo xoogaa geeso hoos kale dheere sidaas markii aan sameeyo waxay halkan u dejiyo intaan dabcan muhiim iima aha inta markii sidaan taa labadooda ayaan isku dooranayaa waa select kale muuska halkaas gee sidaas ugu jid labadooda markaas la doorato right click dheh kadibna masking ku samee oo make masking ayaad ku sameynaysaa qaabka ay isku dhex galeen waxa ka maqan stroke haduu dabcan rectangle kan hoose midkan ka soo kor maro isagana dooro right click markii aad tiraado kadib waxaad leedahay arrange tag front ku samee waka asaga ayaa kana soo kor mari doona waka sida ku sameeyay dalka u jeedo waka asaga ayaa koreeya control z ay raado booskiisa aan ku celiyo marka sidaan u jeedo kani ma laha wax stroke ma leh kana si u jeedo stroke ayuu leeyahay meesha hadaan ka fiirino stroke ayuu leeyahay marka waxaad sameynaysaa rectangle kale ayaad stroke u dhigi karaysaa asaga dooro rectangle kale halkaas gee meeshaas kale marka aad geeso qaabkaas kale u soo jiid halkaas marka aad geeso waa okay kan kore fill ku samee inaad fill-ka nan dhahdo stroke-giisana aad ka dhigto blue ama cagaar ama waxun airdrop ka qaado ama stroke halkan ayuu ku jiraa sida u jeedo halkaas colorka ka dooro waa colorada hore aad ku soo darstay kadibna weynee marka stroke marka xoogaa ku weynaado wad ilaa wax weeyaan xoogaa markuu ka soo dhex baxo okay markuu stroke geesaha sidaas uga soo dhex muuqdo sida u jeedo stroke ayaan u baahan inaan gadaal marino right click dheh kadibna waxa ku sameynaysaa marka inaad arrange tiraado front aad ku sameyso stroke wuxuu mari doonaa marka gadaal waa inaan qaabka ku sameynay kan mar walba hadii dabcan waxa soo gelisid wax macquul ah inay kuwan soo kormaraan isaga dooro right click dheh arrange ku samee kadibna front ayaad leedahay kor ayuu soo mari doonaa marka meeshan waa iska bixinayna mastarada waa dooranayna delete ayaan leenahay tan imaanayna delete ayaan leenahay meeshan waxa ka maqan magac male tusaale meeshan hadii aan magaca ka soo qaadano waxaan ku sameeynaa control c control f inaan dirano ama inaan caad soo qaadno kulli copy hal xabba ayaa meesha ku haraayo waa kan marka hal xabba vegetables ayaan soo qaadanay qaabka ayuu noo noqday hadii uu farta naga yara weynaado meeshii waan ka sameyn karnaa inta doorano meeshan 160 ka maraysa hoos ayaan yar u yara dhigayna waka qaabkaas inuu la ekaaday marka meeshi adoo marka waxa laga baa inta aan soo sameeyay aad sameynaysaa inaad hal xabo kamid ah stroke uga dhigto midkan
kulli aad dhex geliso oo qaabkaas samayso meeshana waxa inaga maqan karaya magac ka soo qaadan doonaa halkaas kala dangeynana waa okay magacdu naga yara weynaado ama inoo la ekaado si rajayna waa ka wax dhan waa isku cabir qaabka inuu la ekaaday meeshana waxa ku jira number ayaa ku jira waxa isticmaalo waa typecon casharadii hore ayaan ku soo sharaxnay ID cardka inaad fahansantaana waa rajaynaya aan soo qaato ayagana halkaan oo kale aan keeno hoos aan u yara dejiyo waka ayagina qaabkan ku sameeynay marka labadan xabo inaad sameyn kartid vegetables-ka waa rajayn waxaan ku soo diri doonaa marka documentigan oo dhameystiran waxa weeyaan logo vegetables cosmetics ka qaybahan kulli sidaan kan u sameeyay ayaa adiguna u sameyn doontaa insha Allah kan sida u dhexgaliyay rectangle midkan ayaad weeyaan waxa dhexgelinayso kalena waxaad ugu dhigaysaa stroke waan iska dhaafi kartaa kulli stroke muhiim ma laakiin xogaa waxaad moodaa inuu qurxinayo sidoo geesaha sida ugu yahayna waad u jeedaa muuqaalkeeni halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna insha Allah waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin noqon doontaa dad wax soo saar leh oo kaligood shaqaysan kara wax edit gareyn kara wax qurxoon soo alif kara magaalada markaad marayso fiiri dabcan boorarka iyo qaabka u sameeyeen taas waxay ku noqonaysaa marka dhiirigelin inaad sameyn karayso wax darbiyada ku dhagan adiguna aad tahay qof professional marka waxaan kaga tagay inaad qayr badan muuqaalkan dabcan si gaarsii asxaabta kale sida ugu faa'iideystaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته